deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Baraawe iyo Kuntuwaare oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya howlgalla ay ka sameeyeen gudaha magaalada Kuntuwaare iyo duleedkeeda ay ku qabteen 26 dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab oo saraakiil hogaaminaysan ay ku jireen halka ay ku dileen 10 dagaalamo oo Al-Shabaab ka tirsan ciidanka ayaa howlgalka ka sameeyay gudaha magaalada Kuntuwaare iyo daafaheeda waxaana howlgalkaasi uu ahaa mid aad u xooggan isla markaana ay qorsheeyeen ciidanka iyo saraakiisha xoogga dalka warar ay heshay idaacadda kulmiye ayaa waxa ay sheegayaan in 26 dagaalamada saraakiishooda ciidanka xoogga dalka ay gacanta ku dhigeen lagu wareejiyay ciidamo Mareykan oo ku sugan gudaha gobolka Shabeellaha Hoose mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa u xaqiijiyay idaacadda kulmiye in howlgalkaasi uu dhacay isla markaana dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo 26 gaaraya lagu qabtay howlgalka ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen gudaha deegaanka Kuntuwaare isla markaana ay ku wareejiyeen ciidamo Mareykan oo howlgalkaasi ku welinaya waxaa sidoo kale jira in khasaare laxaad uu ka soo gaaray Al-Shabaab howlgalkaasi isla markaana goobihii howlgalka laga fudiyay iminka ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya horey saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo mas'uuliyiinta gobolka ee ku sugan Shabeellaha Hoose waxa ay sheegeen in uu bilowday howlgalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee dhawaan isku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed